maanta halkan waxaan isugu nimi oo shirka jiraad ugu qabanaynaa oo magaalada aan uga soo baxnay anagoo ah gobolka Nugaal gaar ahaan caasimadda waxaan ka hadlaynaa ciidamada la dul keenay magaalada la dul keenay iyo qoryaha lagu jaraayo garaashada lagu saarayo inaanu ka hadalno nimayo waxa la yiri balada ninkii raba boodka uu qoryo ka jibsada waxa loo dan leeyahay waa maxastayada iyo carruurahayaga baa loo dan leeyahay inaanu ka istaagno waa waxna qabta weeye iyadaana u soo baxnay kana istaagno cod dheer iyo cod go'an waxaan ku leenahay hadaan laga waatoobin oo arinta aan dib looga joogsan wixii ka dhaca iyo wixii meesha ka soo baxa ciddii hawsha samaysay baa mas'uuliyadda qaadaysa annagu hadda baaq baan halkan ka soo jeedinaynaa daan saraakiisha iyo shacabka iyo ciidanka kulli aanu nahay baaqan ka soo jeedinaa waxa way arinta laga waatamo magaalada qoryo lagu jarayaa gabarida garaashada qoryo lagu saarayaa lagu rakibayaa kuwa hadda la dul keenay marka waxaan leenahay gobolka waxyaalaha kan amni xumada keenaya iyo nidaamkan la wado halaga joogsada hadii kale aysan hayn waxa loo dan leeyahay waa annaga waxa lagu raadinayana waa annaga waxa lagu doonayaa waa annaga waxa lagu raadinayana waa annaga annaguna waa ka istaagaynaa aw la diyaar baan u nahay magaalada waxaan sheegayaa cidda gobolka Nugaal ay qusayso meel kasta ay joogaan inay arinta ka diyaar garoobaan haday hawd jiraan haday yax jiraan haday Nugaal jiraan haday caduun jiraan haday meel kasta ay joogaan inay ka diyaar garoobaan kana istaagaan waxa gobolka lagu sameeyo oo la shaqo-shaqeynayo shaqo-shaqeyntaas hadda waa wax rag lagu doonayo hal ogaado wax rag lagu doonayo inay tahay aysan ahayn wax dana gaar siyaasadda aysan ahayn waa wax dad gaar lagu doonayo Raxmaan Raxiim awluhu horta marka ugu horeysa Ilaahay baa mahad leh inta markaan ka soo laabto waxa aan halkan ugu soo baxnay oo magaalada uga soo baxnay arrimo indhaweed aanu maqlaynay shaqo-shaqeynteeda iyo sharqinteeda ana u kuurgalay oo micnihii gawaari in la jarayo in waxa weeye diyaar gadow badan aanu dareenay sida la aligeed waxaan qabatay inaanu istifaacno hadii aanu nahay dhalinyarada gobolka Nugaal ama saraakiisha waxgaradka aqoon-yahanada cid walba ay qusayso waxaan u sheegaynaa in ay dad ay raadinayaan in magaalada tan ay khalkhal galiyaan magaaladan waa caasimadii Puntland amnigeeda inaan u hadalna annaga ma ahan dawlad baa u hadasha amnigeeda laakiin waxaan noo muuqatay hadaanu nahay deegaanka dad deegaanka raadinaya oo aan raadinayn aan u arag xukuumadda micnihii waxyaalaha khaldan iyo aan ka hadlayn ee u socdo deegaanka oo ku hanjabaya inay garow dhulka la samaaneen sida la aligeed waxaan qabatay inaanu ka diyaar garowno nibaa wuxuu yiri baroorka dhiladu ma wadacsana waxaanu u diyaar garoobaynaa inaanu caasimadda difaacno oo ka difaacno cid kasta oo khalkhal galinaysa waa caasimad Puntland weeye waxa weeye Puntland baa wada leh laakiin cidii khalkhal ku wada oo arrimo siyaasadeed iyo nidaamyo kale iyo gacmo kale aan dareemayno inay ku jiraanin oo saddexaad oo aan ahayn micnihii sidii ay ahaan jirtay Puntland baanu dareemaynaa cadawgu meeshu jiray dad aan u socon baan dareemaynaa garow dad u soo qaadanayo hubkii meesha looga baahnaa inta ka soo raray la soo aadayo garow waan dareemaynaa waxaan dareemaynaa garow qoryo lagu gawaari lagu saarayo oo kuwa la jarayo waxa weeye wax badan baan dareemaynaa sida la aligeed waa u diyaar garownay wixii ka yimaadana waxa u maleynayaa iyaga ayaa waxa weeye kafaaro qaadi doona ummadda reer Puntland waxaan leeyahay isku duubni baa looga baahan yahay iyo wada tashi iyo walaal cid gaar ah hadda anagu aan farta ku fiiqayno ma jirto laakiin Liibiya waxyaalo badan oo aad waxa weeye dadku Liibiya ay dhageystaan oo ay kala socdaan waxyaalo badan oo dad Liibiya ay soo marinayeen caasimadan duminayna garow waxay tahay marka waxaan leeyahay amni baa ummadda ku filan amniga ummaddu ha ka wada shaqeyso waxa xunaha laga waatoobo inta waa talagaliyo wixii inta soo dhaafsiisan waan u diyaar garownay waxa weeye wax ka qabadkeedana insha Allah bil kariim hadii aan si degdeg ah oo aysan uga noqon ciidamada iyo hubka la jarayo oo ay ku yihiin garowe lidda ay ku yihiin annaga ayaa ka jawaabayna hadii Ilaahay yiraahdo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dadka ku wada amniga Puntland khalkhalka ku wada inaanu cadayno in aan loo dul qaadan karin lagana yeelayn waxa la sheegayaa ciidamo kuwii loogu talagalay inay shisheeyaha difaacaan in waxa weeye magaranaysa dib loo soo celiyay oo ay magaalada hadda meel ka mid laga sheegay inay yimaadeen waxa weeye baawur baa la sheegay magaalada lagu jiray waxaan u sheegaynaa inaan laga yeeli doonin wixii cid kasta oo waxa weeye wixii maartay maamulka ka hor imaanaya sameynaysa ama khalkhal kicinaysa
inaanu ka yeelayn annagoo maaragtay kaashanayna dowladda waxa weeye waxaan kaloo rabaa inaan qodob kale ka hadlo dad badan baa miidiyaha hadda ka hadlay oo ka hadlaya arrintii hadda taagnayd oo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka isqabadkooda ahayd waxa weeye ma aha waxaani aniga say hadda ila muuqato dhulbaanta tol baan nahay anagu waa dad walaalahay tol baan nahay waxa weeye mala kala dhammaanayno laakiinse dadka waxa weeye fikirka khaldan ku shaqaynaya ama gacmo shisheeye ay ku jiraniin waxa ay wadaaniin ma yeelayno si fiican baan u garanaynaa wixii Soomaaliland la shaqaynaya waa fahansanahay waa garanaynaa laga yeeli maayo inay maaragtay amniga ay ku cayaaraan ama ay kharibaan ka yeeli mayno uguna dulqaadan mayno insha Allah taala annagoo kaashanayna dawladda iyo saraakiisha cid walba wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dalka dawlad baa ka jidha waxa weeye maamul baa ka jira dadka deegaanka oo waxa weeye maamulka qaybtoo tahay waa waxa naloo sheegay inay ka wadaaniin deegaanka qalqal ka wadaaniin meeshan anaga maxas baa noo taalla dhalinyaradii iyo saraakiishii baanu nahay deegaanka waxaan u sheegaynaa dadka khalkhalka ka wada magaalada oo ciidamada dul keenay oo qoryaha dul keenay oo meeshii loogu talagalay inay geeyaan aan keenine la soo aaday maxastayada iyo carruurtayada waxa mas'uuliyadda meesha ka dhacda inay iyagu mas'uul ka yihiin annaguna aan u diyaar garownay 24 saac gudahoodna waxaan u sheegaynaa haddaan carruurta iyo maxasta qoryaha la dul gusoo dul fororiyo ciyaalada xunka meesha halka nimanka meelaha la shishiraya wixii soo gaaray inay iyagu mas'uul ka yihiin waxaan u sheegaynaa dawladda waxaan u sheegaynaa odayaasha waxaan u sheegaynaa ismada inaan u dulqaadan karin yeelayna waxa ay la wareegayaan waxa weeye waxa loogu talagalay cadawgii aan u wada diyaarsanayn inaan iska dhicino baa anaga nugula soo jeesan qoryihii waxa ka shaqeynayaan de kulligood ma ahna waa wax yar oo aan waxba garanayn weey oo wax ma garataa oo dana kala wata oo dad kala soo dirsadeen qaadana mayno waxaan u sheegaynaa marka annagu diyaar waxaan u nahay inaan hawshaas jawaab ka bixino haddii la haydmo haddii aan nala ka dulqaadin meelaha baabuurta la keenkeenayo qoryaha carruurta iyo maxasta lala soo aaday waajibka ay leeyihiin aan marino haddii la haydmo baan ugu baaqaynaa ummadda reer Garowana waxaan leeyahay adeer meeshan maxastiinni iyo carruurtiinni ma taalla waxa weeye u diyaar garooba hawshaas sidaad guryihiinni weeye waxa weeye waxa lagu faanayo la leeyahay waa la burburinayaa hadda ninka gurigiisa la burburin karo waa la ogaan doonaa haddii la haydmo ninkii maxastiisa xabada la dhici karana waa la ogaanayaa laakiin waxaan u sheegaynaa aan been ahayn sida ugu dhaqsiyaha badan haddii la haydmo inaan jawaab uga bixinayno bismillaahi raxmaani raxiim ummadda Puntland oo dhan baan horta salaamayaa iyo madaxdeedaba inkastoo aan u jeedo maanta in ay doonayaan dadkii inagu aan isku aaminay inay dusheena ku dagaalamaan marka taas annagu ma u dulqaadanayno korkayagana lagu dagaalamayo reer Garow cid aad isku haleynaysaan maanta ma jirto xaqiiqadan idin sheego marka mana haboono in korkayna lagu dagaalamo hadii la dirirayo meelaha laada waa difaacina maxastayada si cad وانا كنت لقلي وان كاسن نقول بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ما انت waxaan saxafadan u qabanay annagoo ah dad reer Puntland guud ahaan khaas ahaan reer Nugaaleed reer Garow waxa halka in ka muuqda saraakiishii odayaashii magaalada culimadii abwaaniintii dhalinyaro badan oo shucuubta jida arimaha xaaladaha jira ay kicisay arrintaasana maanta saxaafadda meesha ugu yeeray kuna qaban waxaanu ka hadlaynaa saddex qodob mid waa midda Puntland horta madaxdeeda marka hore iyo dhamaanteed waa salaamayna iyo odayaasha isqabadka jira Puntland dhaxdiisa waa la soconaa waa jira awalna wali waa u dhici jiray mid la xalliyo iyo mid macnaha lagu kala reeyo intaba waa ahaan jiray dib male taas ka soo gudub Puntland waa dad walaala waxa ku heshiiyay dad walaala oo shanta gobol iyo buuhoodle si isku duubni baa loogu heshiiyay wax qaybtan baa la galay miisaan wana walba wuxuu xaq u lahaa iyo miisaankiisa waa qaatay isku duubni baa waxa looga maleynayay maanta inay meel uga soo wada jeedaan waxa la maleynayay maanta xuduudihii maqnaa iyo dalkii maqnaa in la soo wada celiyo oo maamulka soo yimaadana hadda waa ku soo galaa marka hore loolanka inuu soo celinayo wadankii maqnaa
dadka shacabka meel joogan reer Puntland inay si isku dhama arrintaas uga soo wada jeedaan baa ahayd arrintu taas la maleynay iyadoo ay taas jidho maalin kasta reer Puntland hadaan anagu reer Garowe waxaan nahay dad nabadda jecel waxaan nahay dad dulqaad badan waxaan nahay dad aan xasarada iyo dhibta badanteeda ka shaqayn waxa maalin walba soo yeerays laba arrimood marna arrin qabiil marna arrin qaran oo dawladnimo ah wixiina way isku qasantaa waxa laga soo dhaaranayaa Hargeysa waxa laga soo dhaaranayaa Burca waxa laga soo dhaaranayaa Boorame waxa laga soo dhaaranayaa Laascaano waxa laga soo dhaaranayaa Tukaraq mid walbana hada ujeedo gaar u leeyahay kuwa shisha waa garanaya hada nin dalkaaga iyo dadkaaga ku soo duulay oo si cad ugu soo duulay waa la gartay laakiin midka dalka kula wadaaga oo aad maamulka kula wadaaga oo dhalashada kula wadaaga oo dhiigga kula wadaaga oo aad naftiisa iyo maalkiisa naftaada kulliba aad u huraysid wixii ka maqan haddana maalin walba soo dhaaranay waxa dhagaxyo ku badatay Garowe dabaqyo badan iyo muraayada Dubai oo kale noqotay dhulka la sameeyay waa la dubinaya waa la qaxaya caruurta afka lagu qaadanaya ayl baa loo qaxaya meel kasta la geenaya arrintaas in badan baan u dulqaadanay dadku arrintaas dulqaadashadii waa baraka waa ka dhamaatay xaaladaas mid jiraysa maaha waxaan u sheegaynaa waanu halkan saxaabada maanta ugu qabanay waanu magaalada uga soo baxnay waanu jiida hor u nimo u taaganahay saraakiisha iyo ciidamada iyo dhalinyarada u soo banbixeen arrinta inaan marka hore waxaan u sheegaynaa in arrintaas inaan arrin lagu kalifatay oo dadka wada dhibta iyagu doonayaan oo ay mid ay ka shaqeynayaan oo dadka lagu kalifay ay tahay arrinta haddaan laga tanaasulin oo dadkii ay raali galin kan celin oo la arag macnaha wajigeeda xunaan waa la arkay keedi fiicnaa la arag waxa laga qaadanayaa talaabo waxa weeye marakan hadda waxay la tahay mar waxa la irag coloobay afxumo waa camaladiis waxba la isula harimaayo mar haddii aad runta timaado waa la istifaacaya wixii dufqaba walaalnimo inaan ka isaga daayay inaad dadnimada lahayd ugu difaacaysa istiyaari maanta dagaal dacad looyahay diinta iyo maalka iyo nafta lagu dadaalayo dalkiisa banaan kiinta soo damacaya intaba hadda anaguna la ku soo damacay mid diimeed iyo mid naf iyo mid naal iyo mid sharaf waxa weeye sharaftaada in waxa weeye la difaacdo waa biduun shuhud inta sharaftayadii baa wax loo dhimaaya maalin yoon oo dhagayo ku soo dhacay dulka iyaga baa lagu soo dhaaranaya iyaduna hadda waa maalka iyaga baa waxa la leeyahay waa waxa laga digayaa bidiciisa intaba waa intii diintu sheegtay inta marka inaanu iska difaacno diyaar baanu nahay waxaan marka halagan leenahay annagu ma ahayn dad dhibta ka shaqeeya dad balada doona dad xumaanta raadiya waxaanu sheegaynaa gacmo shisheeye hadday yihiin iyo gacmo kale hadday yihiin iyo dibad kale hadday arrintu ka socoto mid ay tahay toonaba annagu diyaar baanu nahay arrintaas asaasaan maanta saxaafadda u qabanay waxaanu qaasaan u leenahay dadka reer Nugaaleed oo reer Garowe arrintan dadka reer Garowe waa dad iska jiifa xaaladaha magaalada dhexdeeda waxa la leeyahay waxa soo galaya ciidamo habeen walba ururo magaalada dhexdeeda waxa laga sameeynaya hubkii baa la jaraya tiknikadii baa la soo galaysa ciidamadii baa meel walba fadhiya dariiqyadii baa xiran haddii arrinta anagu ma garanayno anagu wadanka waxaan ku haleynaynaa maamul inuu xuduudihiisa simo ammaanka ka shaqeeyo waxa halagan dadka iyaga anaga lagu laayo reer Garowe la ku magaciisay qori magaalada loo mari kadhaan dhalinyarada iyo dadka u qaalisan waxa lagu dilay qori baa sidataa baastoladii baana la ka dhigay qoriyihii baana la ka dhigay waa la qaadanay amniga waa jecelnahay waa rabnaa waa ku noolaa iyadoo ay sidaa tahay in nin kale magaalada marka soo galiyo suuyo iyo teedhisabano iyo jiibab iyo hub culus soo galiyo oo ku jaraayo oo hadeer abaabulayo oo la dhex fadhiyo hadda anagu taa midaanu yeerayno ama midaan u dul qaadanayno ma arrintaas marka waxaan leenahay dadka reer Garowe waad aragtaanin maxasini baa taal maalkiini baa taal cutushkiini baa yaal meelaha ka qaxi ka dhaan iyo meel adduunku intuu abuuran yahay meel kale ugu ali ka dhaan ma dadka marka ku soo dhaaranay hadduu mid sokeeyaa yahay iyo hadduu mid shisheeyaa yahay iyo hadduu gacmo shisheeyaa oo kale yahay iyo hadduu mid siyaasiyeed yahay midna anagu ka yeelimayno shareecada islaamku waxay nafaraysaa waa fahansannahay afku mubaarag ba afka ugu balaariyo wixii culimadii ma joogta ilaahay aan ka baqno xaqsa waxa weeye maxasta inoo taal gobolka Nugaal inaynan cidna wajiga wanaagtoona kaga doona in isdifaacno shareecada islaamku waxay nafaraysaa wixii kugu soo duulay in la jahaatid waxaan leenahay dadka waxna dul keenayo nagala noqda hadii allihiin alla yahay nagala noqda oo naga dulqaada ilaa birri subax haddaan jawaab ka weyno go'aankay ka gaarnay baan ka raacaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh